magaalada Barawe ayaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo dabaaldeg iyo mahadnaq ah oo ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka JSP iyadoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka dhalinyaro haween iyo mas'uuliyiin heerar kala duwan leh munaasabada ayaa ahayd mid lagu muujinayay taageerada shacabka iyo isgarab istaagga bulshada ee howlaha siyaasadeed iyo doorashooyinka ka socda deegaanka inta ay socotay xafladda waxa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka deegaanka kuwaas oo bogaadiyay wadajirka iyo dadaalada ay bulshada iyo siyaasiyiintu muujiyeen iyagoo shacabka ugu baaqay in la ilaaliyo nabadda iyo midnimada xisbiga iyo inta hogaaminaysayba waa ku mahadsan yihiin waxaan mar koobaad iyo mar labaad aan u mahad celinayaa wasiirkeena wasiiru dawlaheena wasiir Ilyas wasiir waxaan ku leenahay magaaladan waxaad ka qabatay annaguna waa ognahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa og yahay marka waxaan ku leenahay jazakallahu khayr runtiina taariikhda ay gali doontaa tan Barawe waxyaabay ka dhici jiray ama taariikhda la soo maray waa ogtiin maanta waxaad moodaa in midnimadii bilowga iyadoo socoto ilaahay noo keen fadlan waxaan idinka codsanayaa hadaatiin dadweynaha reer Barawe inaad labada gacan ku qabsataan idan yani in tan ay noqoto bilow oo fiican sidoo kale mas'uuliyiin kale oo madasha ka hadlay ayaa shacabka uga mahad celiyay sida ay uga qayb qaateen qabanqaabada iyo taageerada howlaha doorashada iyagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay iskaashiga bulshada waxaan salaamayaa salaam mugi miisaan leh wasiir dawlaha wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka wasiir Ilyas oo runtii safarkan aan la soo galay iyo shaqada aan hadda intaan ka qabanay ku bartay dabeecado hor leh oo aan awal u aqoon qof ka mid ah dadka deegaanka reer Barawe ayuu wuxuu iga sheekeeyay in maalmihii ugu dambeeyay uu Ilyas halkan uu ku soo laalaabanay dadka reer Barawe dhaxdooduna midnimadooda ay aad u fiicneed wadajir iyo midnimada uu ka shaqeeyay waqtiina uu geliyay ninkaas asaga aan la kaftamay markaas baa waxaan iri Ilyas ka warama haddii aan mar hore oo idin imaan lahay marka wuxuu ugu jawaabay wardiga u qabana Masar anaka ka keenno yiri horta marka wardiga ay u qabtay reer Barawe ninka odayga Masar ay dawladda ka soo celisay wasiir kadibna waa u jeedino maanta halkaan ayuu joogaa soo xisbiga JSP uu ka mid yahay uu kan baan garanayo wasiir xisbiga waxa loogu magac daray cadaaladda iyo wadajirka adigana waxa tahay wasiiru dawlihi wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka degmada Barawe waxaan rajaynayaa inay cadaaladda cagta saartay waxa muuqato hiddiile aad u qurux badan ifafaale aad u qurux badan sawir aad u qurux badan ayaa noo ifaayo ilaahay waxaan ka baryaynaa isbeddelkan dhacay mid degmada Barawe xuquuqdii ay lahayd ay ku heli lahayd inuu noqdo ilaahay idinkiis xafladan caawa waxay u soo ama ay daaran tahay mahadsanidin tiimka JSP mahadsanidin ay daaran tahay waxaan idinku talagalay oo idin dhigay wasiir Ilyas wasiir dawlaha wasaaradda cadaaladda ayaa idinku sharfay maadaama shaqo badan aad soo qabateen howl badan aad soo qabateen wasiirka halkaas waa kaga madaxweynaha asina dawladda yiraahdo maadaama uu dhalinyarada oo ka farxay caawa oo mahadsanidin oo xafladda yiraahdo u dhigay marka xafladda asaas iska daarantahay runtii shaqooyin badan la soo maray wax badan la soo maray sidoo kale waxaan rabaa inaan meeshan aad aan ugu mahad celiyo odayaasha dhaqanka degmada Barawe iyo suldaanka guud oo isgarabsanaya wax badan iyo kaalin muuqata ka qaatay halkan ayaan rabaa dadkaas ogow cudub dhaxad ay xisbiga u yihiin ogaada qof kasto oo odkay nakifaday naki usjeel inay si doorada ayaa la suubi taasna maxadwiin wane dadaalkaasna ay suubiye xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sheenta dadaalkaas oo hormuud ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Hassan Sheikh Mahmoud usheen horumarkan ugu dambeyntii waxa munaasabada soo xiray wasiiru dawlaha dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya Danjire Ilyas Sheikh Umar
4.5 waa dhammaaday waxaa la aaday xisbi annaga waxaan noqonnay faamil la yidhaahdo faamilka GSB waxaan nahay annaga faamilka la yidhaahdo faamilka GSB sida xildhibaanka maxamed cabdiqaadir uu sheegay muqdisho ugu yimid iyo wasiir hore Zakariya tiimka maanta hoolka ku sugan waa hal family familkaasna waxa waaye waa xisbiga wadajirka iyo cadaaladda xisbigaas ayaa wuxuu yahay xisbi weyn oo ah xisbiga cadaaladda iyo wadajirka xisbiga kaliya ayaan ku midoobaynaa qabiil waa ka soo tagnay arrintaas sax ma tahay wixii hadda ka dambeeya qabiil waa ka soo guurnay waxaan u soo guurnay qabiil la yiraahdo GSB annaga oo dhan waxaan nahay hal family oo soo guuray GSB shaqada saxda ah xisbiga maanta inoo bilaabatay xisbiga shaqadiisa saxda maanta bilaabatay waxaan rabnaa in la xoojiyo wadajirka waxaan rabnaa in la xoojiyo cadaaladda waxaan rabnaa in degmada Baraawe horumarkeeda laga shaqeeyo xisbigana waxaan rabnaa xisbi lagu dayanayo xisbiyada kale ay ku daydaan uu noqdo hormuud baan hadda nahay waxaan rabnaa hormuudkaas inaan sii wadno waa guulaysanay laakiin waa guulaysanay macnaheedu ma aha in shaqada meeshaan ku egtahay shaqada maanta inoo bilaabatay waxaan u baahannahay inaan ka shaqeyno horumar waxaan u baahannahay inaan ka shaqeyno nabad waxaan u baahannahay inaan ka shaqeyno sidii deegaanka loo horumarin lahaa aad iyo aad u mahadsantihiin